السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيار تقدت وجرته سود هذا كلجين ما أنتوا عن كهلنا أولا أنا قبل لا مقعي حالي راها عبد الله مع عبد ولي راها سكول ديستريكت عن الشقية فربو قيبته عن الشقية فاميلي ليترتي سبيشاليست أيانا هاي marka nidaamyaha iyo istaraatiijiyaha u shaqeeyo iskuulada iyo si iskuula shaqeyn lahayn familiyaha ayaan ka shaqeynaa insha Allah marka soo dhawaada ajandagana maanta ku saabsan yahay istaraatiijiyaha ama qaababka familiyaha ama reerka iyo iskuulada reerka u guuleysan lahayn ilmaha macnaha waqti masaafo lagu jira distance learning waaye wax kasta oo adkaada caabuqi coronavirus-ka waa qasii daraya marka qaababkii familiyaha iyo wada shaqeyn lahayn waalidka iyo ilmaha wada shaqeyn lahayn اسبوع عنقو uguuleysto ayaan maanta ka hadlaynaa awalan qaybaha weyn qodobaha weyn meesha noo yaalan waxa kamid ah schedule-ka ama jadwalka cunuga in loo diyaariyo tan labaad space wax ku barto oo la dhaho learning environment in loo hagaajiyo meel kursi wax u yaalan mid saddexaad technology-ga platform wax lagu barto google-ka meet-ka oo kale ina barato adi waalid ahaan laga maarmaan weeyaan tan afraad communication wal xiriir aan leedahay iskuulka ama macalinka cunuga uu ku xiran yahay iyo waalidka maadaama ay ka dhaxayso shaqo wala shaqeyn inay ay leeyihiin wal xiriir baa loo baahan yahay zoom etiquette wax kasta la soo galo online oo kale nidaam buu leeyahay kamarada inaan ku qumanaato inaan soconin waxyaalo nidaam baa jiraan taana waan ka hadlaynaa tan shanaad waa sleep cunuga hurdo ku fiican inuu helo dadka qaar ilma fiican hurdo fiican day waan cunuga xawaa uu iska sidii la rabay ma noqonayo classka maalinta uu seexanayo dhibaato badan iska jirta monitor screen time ku cunuga ina monitor gareyso oo inta waqtiga uu gala TV-ga ama uu isticmaalo telefoonka ama computerka uu isticmaalo in la socoto maalintii ajinta la rabaa adii waqtiga isku bixiso ay ogaato xaaladaada ayaa loo baahan yahay ilmaha sidii loo engage gareyn lahaa idan waan ka hadlaynaa oo wax loo bari lahaa loo engage gareyn lahaa so routine-kan iyo ama schedule-kan muhiimkiisa waxa waaye waa predictable wax la garan karo waqtigu yahay waa wax lagu xisaabtami karo stress-ki baa uu ka yareyn karaa iyo haddii cunuga uu garanayo wuxuu sameynaa ama waalidka is socdaan wala maxaaleedii waxa ma jirto wax kul meesha ku dhagan yihiin mindset waaye cunuga maalin kasta iska dhaadhicinaya iskuulka inuu aadayo iskuulka hadduu ku xisaabtamayo inuu aadayana waxa waaye waa nin diyaarsan waa maalin kasta xilliga lagu talagalo u kacaya waqti kasta kalaaskiisa uu galaya so maalin kasta cunuga marka alamkiisu diyaarsanaya dharku saa xiranaya xilli fiican uu kacaya xilli lunchka uu garanaya xilliga English leeyahay uu garanaya wax kasta jadwal adduunkan schedule-ka tula socdo saas uu fiican yahay mid kale each day waa in isla fiirisiin cunuga wuxuu u haysto iyo maadada uu qaadanayo iyo meesha uu maray in isla fiirisiin marka maalinta dhamaatan in isla fiirisiin fiican meesha uu maray iyo wixii ka maqan quiet time and reflection xilli oo la aamusan yahay oo cashir lahayn oo reflection wixii maanta uu soo qaatay dib muraajac lagu sameeyo iyadana loo baahan yahay encourage physical activity exercise waa laga maarmaan cunuga marka uu jimicsado banaanka aad maalin kasta inuu iska dhex fadhiyo guriga ma fiicno marka time la helo banaanka u baxa fiican oo soo ciyaaro ama saaxiibadii socialization uu sameeyo live session marka la galayo ama google uu yahay waalidku inuu ogaado oo la socdo oo macalinka soo galayo lagu shaqeeyaan waayo so schedule-ka waa arkaysiin wax noocan oo kale waa schedule kala dhahaa hadda kan oo kale waa elementary laakiin kan iskuulada ma waa tusaale oo kale so isniinta ilaa jimcaha waa schedule-ka saacadii waa aragtiin 8:30 laga bilaabo 8 subaxnimo ilaa wuxuu soconayaa 2 duhurnimadii oo labada duhurnimo soconaya so maalin kasta waxay leeyihiin ilmaha waa aragtiin so xilli maalin jimcaha oo kale waa maalin oo macallimiinta oo inta badan ilmaha la caawiyo so inaan ku xidhnaatiin fiican schedule noocan oo kale awoodatiin macallimiintu ay soo diraan ilmahana weydiiya insha Allah schedule-ka type-kiisa bal ka hadla noocma schedule-kiina see waayo iyo routine-kiina cidda ni yaalo schedule see ni yaala kan iskuulka ma ogiye wax kale maaniyo qorshaysan adii ilmaha ku xisaabtan iyadana laakiin in iska baxo nin walba waqti soo gala ma fiicno ilmaha waa inay ogaadaan xilliga ciyaar aadayaan xilliga wax leeyihiin xilliga homework laga caawinayo xilliga guri ka caawinayaan schedule-kaas loo baahan yahay success and challenges adii hadda tahay waalid waxyaalo badan oo taqaana jira oo ku guuleysteen adii ilmahaada waxyaalo badan waxa laga yaabaa inay caqabad nagu yihiin maxaa nagu adag maxaa fudud wixii su'aal waan qaadeynaa insha Allah so dhawaada okay mid kale hadda u gudbin waxa waaye learning environment waa xilliga oo meesha wax lagu baran karo meesha waa meel nooc ma waa meesha wax lagu baran karo waa inaan isweydiino
ideally meesha waxaa la rabaa inay ahaan student bedroomkiisa ilmaha qaar waxay ka soo galaan cashirka iyagoo sariirta ku jifan taas waa laga fiican yahay waxa fiican cunuga meel oo loogu talagalay waxbarasho in loo hagaajiyo distraction aan lahayn meesha iyada oo TV aan shidnayn iyo background noise iyo qayli iyo cunug inta ka qayli aan lahayn meel quiet ba fiican meesha lagu baran inay ahaato comfortable inay ahaato meel oo raaxo laakiin raaxo said ahayn cunug meel oo fiican oo clean nadiif inay ahaato waayo learning space inuu lahaado meel oo iftiin ah meel mugdi hadaa gasho ku arki ma laha learning materials ki qalabka wax lagu baranaay charger-kii qalimihii kulli meesha inay yaalaan waayo meesha meel caadi maaha meel habaysan waayo waa inay ahaan meel cunuga isolated ah oo gaar uu maartu loogu takooray oo macnaha cunug isku dhex jira bulshada dadka guriga fiican taking breaks xillina break qaata xilli exercise la soo ciyaaro jimicsi hal aado xilli hala socialize garo ilmaha kale hala sheekaysto mar biyaha cabo mar cuntaha cuno space-ka laakiin waa inuu ahaado meesha aan sheegayno waa meel waxbarasho loogu talagalay waxyaalaha kale kulli ha samaysto guri dhexdiisa laakiin marka waxbarasho la gaaro meeshiisa ku noqdo miiska u yaale so every family situation is different waxa laga yaabaa familiyaha qaar familiyano kale Soomaalida kale waan iska badannahay maasha Allah so waxa laga yaabaa waalidkii gurigiin iska yahay oo caruurta meel cunug kasta meel u hagaajin karin laakiin si alla sida u shaqeynayso ilmaha oo best u adag garanaysa waalid ahaan khibrada waa loo baahan inaad adeegto insha Allah so waa aragtiin hadda meeshan sariira taala cunuga iska jifaa iPad yar iska haystaa iska mashquulsan yahay ma garanayno wuxuu sameeynayo meesha waa aragtiin sariirtiisa u taalo wixii kulli alaabta ku tuursan meeshan wax lagu baran karo laakiin meeshan kale bidaxda waa aragtiin meel clean waayo oo nadiif ah oo qalabkii iyo wax lagu baranayo kulli yaalaan meel noocan kan loo baahan insha Allah tan kale waxa waayo technology platform-ka inaad barato Google-ka wixii la isticmaalo iskuulkiin maxay isticmaalaan siiso oo kale la isticmaalo elementary inta badan siiso waa inaad taqaaniin si loo isticmaalo muhiim way hadaa aqaanin insha Allah waa laga caawinaya iyadana soo insha Allah la soo xiriir macallimiinta la xiriir ama anaga la soo xiriir waalidkiin wax kasta aqaan qasab ma aha soo hadii aniga waxa ma aqaanin maxaan sameyn karaa cunugii maxaa ka caawin karaa no looma baahno waxa qof waxa rabaa inaa ahaato cunugga tartiibinayo oo dhiirigelinayo baa loo baahan taas muhiim ma ogi dadkeena waxay iska dhacaan waxa ma aqaanin cunug maxaan ka caawin karaa waxaan baranay waxna caasay ka hadlaan yes waa caawin kartaa wax badan aan qaban kartaa insha Allah knowledge-ka wax kasta inaad taqaano oo Google agal karta may waxaad dhahaysaa cunugga itus taa aqaan hada dhima laha isla fiiriya wixii uu ka isticmaadooyinka isla arka insha Allah platform-kan ama siiso oo kale macallimiinta laga hadlaa assignment-ka laga fiiriyaa infinite campus isticmaalaan high school-ka middle school oo kale kuwaas iyadana waalidiin badan way haystaan waa fiirin kartiin insha Allah hotspot haysanin ama internet uu ka go'an iskuulada la xiriir waa la qaybinayaa hatta taa kuwa kale la soo wadaa ruuxii uu ka jaran yahay uu la soo xiriir kara insha Allah waa la siinaa هذا أوبا technological support ماشان ورقة كده كان technological support سكول كله حركة إن شاء الله وحياة دعاء بركة هلا وسني هاي أما وحياة الإنترنت كيف حس قبلنا نلسه حرق إذا نلقى عبنا إن شاء الله سؤال شكله حواي experience كذي أما قفرت أكرر كل أنتي technology مركز استعمال إذا بلاتفورميها جوجل كأكل محي أهايين ما تقانا ما برتاي ما هو سكاب بدلي مسؤولي وحال هذا هاي وحم أنا ملقى مربكة هاي أوكي إذا ولو بهني هاي contribution كينه إن شاء الله نوصل ديبه وحسؤاله أما نلسه حريرة dad badan hadda way barteen way la qabsadeen online waxay ku leeyihiin anaga oo very comfortable waxa anaga waa diyaar cunuga cashirka si fiican buu soo baxaa ani waan aqaana Google imtixaanka uu keen waan garanay waan la socdaa perfect waalidiin kale xawaa lama qabsan laakiin insha Allah waan la qabsan doonaa nala soo xiriir wixii kale aan iska caawinna iyadan insha Allah assalamu alaykum taas aad u fiican tahay technology platform-ka yaan ka hadlaynaa technology platform waxaa kamid ah Google-ka kamid ah Google Meet-ka kamid ah Siso kamid ah Infinite Campus-ka waxaas kulli waxa la dhahaa platform wax lagu barto waa iskuulada isticmaalaan ama social bahla app-ka isticmaalaan waayo so cunugaada ina Siso-ga monitor garayso waayo taas waan ka soo hadalnay okay experience-ka aad leedahay technology-ga ka sheekay technology-ga adi iyo ilmahaada ka waran wax baa nigu adag ma saacada waa xaaladda idan noo soo gudbiya insha Allah tan kale waa etiquette-ka iyo nidaamkii laga rabay Google-ka ama Zoom-ka laga rabay soo mar qaar waa synchronous marna waa online macalinka fadhiya marna wixii waa la soo diray iyadana waa labadaasba ina kala barataa loo baahan yahay meesha la galay ina ogaato waxa ogaataa cunugaada markii live uu macalinka soo galay inuu ogaado waalidiin badan waxay ku dhahayaan ama in la badan waxay ku dhahayaan Zoom-ka waxa waa iska optional ninka rabaa soo galin no optional ma aha waa xilliga macalinka la isku xiri lahaa waa xilliga la ogaan lahaa meesha wax marayo
imtixaan ka maqan cunuga muxuu A ka haystaa muxuu B ka haystaa waa xilliga la ogaan lahaa oo macalinka akhbaarta laga heli lahaa so ina isla ogaatiin cunugaada waqtiga schedule-kaas iyadan isku daya cunugaada adiga ina monitor garayso isku day because kuwa qaar waxay ku dhaayaan waan galnay markaas oodtan ay ka baxayaan inaad la socoto xaaladiisa dhaqdhaqaaqiisa la socoto isku day markuu soo galo participation-ka cunugu sameynaa live session iyadana inaad ogaataa fiican features-ka Google ku qabo waxa kamid ah features badan oo qaba mar mute cunug galaya mar chat uu leeyahay background-kii waxyaalan kulli isla fiirsin waaye markuu mute yahay waraa maxaa mute ka bax macalinka la hadal wala hadlayo amal waxyaalahaas kulli virtual-ki background-ki background maxaa la dhahaa meelka sawirka oo la arkayo oo kale background-ka lagu xiraa la dhahaa distance learning expectation waxyaalaha kulli waa waxyaalaha laga filayo cunuga inuu sameeyo so questions or comment wax su'aal leh ama akhbaar kale noo haysiin ama comment وهذا مهم متأيدا وأنا قاعد أقول لك حاجة متى كلا وأسليب عنق هرده إنه هلا كوسابسن هرده وناكسن أو كفلان إنه هلا يا لو بهني هاي ماشي جدول باكود جان المهيرة كأم إلا يكوينانا ينتك وسيت فايف كجرا أنتو هرده لو بهني هاي وأرتين هذا أكل عنق أكل سكول إيش كأكل وأرتين اللي حما شد حيتان سنة وحيو بهني سجال ساعة إلا كوي 8 ساعة recommended أنت وأون هذه عدد ويا وحسب معها taas loo baahan yahay meesha ku qoran so hurdada ee muhiimka ay leedahay ayaan kormarinaa hurdada waxa kamid ah waxay la mid tahay sida cuntada oo kale ama biyaha oo kale jirku u baahan yahay marka cunugu inuu nisto aad ay muhiim u tahay problemka laga qaado ama dhibaatooyinka laga qaado waxa kamid ah mood disturbance waxa la yiraahdaa dabeecadiisa oo isbedelayso moodkiisa maruu iska hanaaqsan yahay emotional instability shucuurtiisa oo stable ahayn oo kacsan markasta hurda la'aanta waxay keentaa negative impact waxay ku keentaa cunuga waxbarashadiisa inay fiicnaanin predictable in ahayd hurdada oo pattern ay leedahay maybe wuxuu seexday 9 habeenimuu seexday wuxuu ka kacay 5 ama 6 schedule in leeyahay fiican Allah xilliga sarta la gaaro TV-da hala damiyo everything so markasta oo cunuga seexanayo waxa laga baahan yahay TV-da ama device-ka ama telefoonka wax kasta 1 hour ka hor ama saacad ka hor in la damiyo because light blue wuxuu keenaa cunug brain maskaxdu stimulate gareeya maskaxdu active ka dhigaa hurdo ma qabanaysa marka qofka anaga aragna taas marka telefoonka wixii kullina iska fogeysa marka seexanayso aad ay muhiim u tahay taasna iyadana waa loo baahan yahay so adii khibradaadii ama waxa kala kulantay increase use of screen because screen ka aad loo isticmaalo screen marka la dhaho waxa waaye shaashadooyinka la isticmaalo ama laptop ka ahaado ama iPad ka ahaado ama TV ga ta ahaado waxa kulli screen la isku dhahaa so ka waran marka ilmihii oo la kari lahaa marka hore iPad laga kari lahaa oo marka hore social media waxyaalan ku jireen iyo Facebook iyo waxyaalahooda iyo Instagram ku jireen haddana haddii iskuulka loogu daray ka waran marka waqti badan baa ku qaataan ma wax baa iska bedelay oo hadda iskuulka bas loo isticmaalaa bal nala soo wadaag adigana fikirkaada iyo waxyaalaha kala kulantay aadaan u soo dhaweynaa insha Allah so taas waa taas tan kalena waa monitor screen-ka inaa monitor garayso isku day oo macnaha la socoto dhaqdhaqaaqiisa cunugu wuxuu sameynaya wixii entertainment uu galay inta saacada uu ku qaatay cunuga inaan la socoto isku day ama telefoon askaga faraha oo qaado ha sameynin wixii la sameynaa inaad ogaataa fiican oo parent control waxyaalaha ku xirto qasab ma aha in la rabo oo qasab ma jirto laakiin waxaa la rabaa cunuga suu sameynaa in laga warhayo dadka la hadlo ula sheekaysto guriga marqaar ka shaqeeyo project loo soo dhiibay uu sameeyo time outdoor uu waqti ku qaato soo ciyaaro the number of inta shaqo uu qabanayo technology screen-ka aad uma fiicno madii aad loo isticmaalo markasta encourage your child to include screen free time marqaar inuu free ahaado oo screen waxan kulli iska daboolo isku day dadka qaar waxay kulli cunuga maanta kulli screen buu ku jira haddii saa uu sameynayo waa dhibaato waa ina macalinka la xiriirtaa marqaar lahaa waraaqa u soo dhiibay cunuga waraaqaha in la sameeyo rabo aniga ama buugal ma wareebi waxan kulli waa sameyn kartaa xaq baa u leedahay dadka waalid marka la soo xiriir insha Allah encourage your child inuu isticmaalo pencil ama paper waraaq ama qalin inuu isticmaalo isku day app-ka iyo programs-ka la isticmaalayo inay ahaadaan kuwa educational waxbarasho ku saabsan inay tahan isku day common sense media qoladan waa qolo oo xagga screen-ka waxa ka shaqeysa ilmaha
so take care of yourself covid lagu jiraa waa la socotiin xaaladda you know stress badan oo keenay you know routines protective in ahaato you know as ilaaliso aad u fiican tahay mask waxaan xirato waxyaalaha samayn karto waxaa kamid ah inaad breaks qaato markastoo shaqada available noqoto break qaado 10 minutes 15 minutes wixii aad ku filan inaad seexato get enough sleep you know socialize dadka dhexgal bulshada ku xirnow cunto fiican nutrition cun exercise samee you know orad soo jimciso you know gymka aad ilmahadana sidoo kale ha sameeyaan igana mar qaar hadii wax ku adkaado la hadal qof oo mentor ama reer ka baxsan ama reer ka mid ah ama qaraabada ama you know la hadal experience ku dhaam ha ku caawiyo work balance iyo waxa la rabaa iyo plan work balance iyo home balance adi inaad isku balance gareyso marna shaqadaadii marna hawlahaadii inaad qabsato you know work space aad ku shaqeyso inaad leedahay ground rules inuu la jiro sharci iyo nidaam degan inuu jiro waayo adii cunugaan iga dhaxayo xiliga la soo hoyanayo xiliga guriga laga baxayo waxyaalahaas kulli waa ground rules inuu iska bixin you know laga dambeeyo la su'aali karo you know intee ka imaatay intee jirtaa you know shaqadaadii aw buugaadii aw maxaa haysaa you know waa taa waa xilkii waalid kasta saarnaa waan isgaranaynaa laakiin inta hadda qurbaa imaan waxyaalo badan ay isbedeleen marka waalidiinta inay ogaadaan inay mas'uul ka yihiin ilmaha waalidiinta qaar waxay ku leeyihiin cunugan saanu rabaa ma shaqaynaysa saanu rabaa laakiin waxa laga rabaa maxaa waaye saanu rabaa waxa koraysaa wixii laga rabo ma keenay very important waa taas iskuulka wixii laga rabo ma keenay horta wuxuu rabaa ha sheegto yes laakiin shaqadii loo diray ma sameynaa hadduu sameynayna muxuu rabi karaa wax ma rabi karo because adaa in charge asaga in charge maaha adaa mas'uul leh asaga cidda mas'uulka maaha okay ways you are coping with covid ki iyo adi iyo xaaladda iyo distance learning alxamdulillah waa fiican hadda laakiin meelo badan aad u dhamaanaya covid ka dib ku keena laga hadlaa meeshaas okay tan kale waxa empowering a child cunugaada see awood u siin kartaa how can you empower your child or motivated oo dhigi kartaa cunug dhisna oo dhigi kartaa so be an evaluator cunugaada waa inaad qiimeyn karto waxbarashadiisa waxaasuu ku liitaa waxaasuu ku fiican inaad dhihi karto horta isku day horta adi waa inaad ogaato qiimaha ay leedahay macalinka ama dadka waxbarashada joogo qaybta ay ka qaataan ilmahaada door noocay ka qaataan waa inaad ogaan karto igana partnership waxa la dad wax wadaago cunuga naga dhaxeeya cunuga mar macalin buu la joogaa marna adigu kula joogaa marka waxa weeyaan bismillah marka waxa weeyaan waa inaad ogaano igadana wixii ay wadaagaan iyo sidii loo la xiriir lahaa macalinka maadaama oo cunuga naga dhaxeeyo listen dhageyso cunugaada dhageyso wuxuu ku sheegay dhageyso adi kaliya lagu dhageysanin waalidiinta qaar waxay ku dhahayaan cunuga yar wuxuu sheegay malo saana dhahe isla tashada trust iyo amni ha naga dhaxeeyo iyo isku kalsooni iyo wuxuu ku sheegay qaadan karto kuwa qaar waxay dhahaan kan wuxuu sheegay malo cunugan waa saas waayo waxa ma sheegay hadda saaq dhigto cunugii dad kale u warramaayay warka ka diido oo ka guruyso release responsibility marka u waramayso trusty waxayna ku aamini karto shaqo ku aamini karto gradually in yar hadhow qof weyn uu noqonayo mas'uuliyadda saa la wareegi doonaa risk inuu qaadan karo cunug wax isku day karo istaqbal garan karo wixii kaliya uu sameyn karo isku day iyadana taas waa sida cunuga ilmaha kor loogu qaado wax kasta uu sameeyo waa inaad tiraahdo good job waa inaad la socoto waa fiicanta hooyo saana tahay gabadhayda waa tahay wiilkayga waa tahay adaan kugu tashanaya inaad dhahdo waay aad dhiirigeliso wax kale ma haysto ani adaa ilmahan u weyn meesha ka soo bax hoos ay dhigan waa taqaanaa xarfaha la isticmaalo aad u taqaanin dadka waalidiinta positive self talk inaad la hadasho self talk hadal oo positive inuu ku hadlo cunuga fiican have high expectations cunugaada inaad expectation weyn leedahay ama rajo weyn ka leedahay expectationka kuwa qaar waxay ku leeyihiin waxa ma noqonayo dhakhtar ma noqon ma uu sheeg war waxa iska boga iska dhaaf iskuulka iska dhaayaan cunuga marka uu isliidaa asiga naftiisa xarfahaada isticmaalayso hadal fiican isticmaal waalid ahaan dad tahay maadaama aad role model qofkii lagu dayan lahaa hadal wanaagsan ka soo baxo laakiin waxa xun ka soo baxaan wax ka dhigaysa ma laho hadii adi hadalahaada ay hadallo fiican ay ahayn cunugan hadal fiican ka sugin cunuga waxa u daysaa inuu raaco interests cunuga kasta wuxuu jecel cunuga sportka jecel cunuga jecel science-ka wuxuu jecel cunuga ogow meesha ka dhis halka ka wada insha Allah current level of understanding meesha cunuga hadda oo fahankiisa uu marayo fahanka cunuga meesha uu marayo inaan qiimeyn karno oo la socon karnaa la rabaa so additional comment wixii kale su'aal ku dari karo soo dhaweynina aad baan soo dhaweynina insha Allah soo dhawaada
qaybaha dambana waxaan leenahay markii insha Allah training kala soo socdaan training kale talaada kuwa dhacaya 19 bisha waxaa la dhahaa literacy strategies at home qaybashii aad xunuga waxbarashada uga caawinayd xaafadda tan kale waa talaada kale 26 insha Allah 26 social emotional shucuurta iyo dareemaha xunuga sidii looga caawin lahaa at home in looga caawin lahaa soo iyadana waad isdiiwaan gelin kartiin halkaas aad nagala socon kartiin insha Allah soo dhawaada aad baan ni salaamay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh